nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yimid magaalada Madiina wuxuu arkay yahuudi oo maalinta Caashuura waa maalinta tobnaad ee bisha Muharram soomaya markaasuu waa maxay maalinkan aad soomaysaa waxaan waa maalin weyn oo Ilaahay Nabi Muuse badbaadiyay Fircoonna uu Ilaahay qarqiyay oo Nabi Muuse uu soomay mahadnaqu Ilaahay u mahadnaqaayo annaguna waan soomaynaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam kuma oranin dariisu Nabi Muuse u soomay ama idinka Nabi Muuse da ku abtirsadee idinku soomay wuxuu fa nahnu haqqu wa awla bi Muuse minkum annaga ayaa Nabi Muuse idinka xigna fasaamahu rasuulullah nabigu uu soomay sallallahu alayhi wa sallam dadkana wuxuu faray inay soomaan Caashuura nabigu uu soomay waxa kaloo sheegay يكفر السنة الماضية صونك عاشوري إنه سنة دي تكتي دروب تيدي إلى هاي كاغة ترتراي وحكروا نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل سنة كصوص عضها دي أنقارو لأصومن التاسعة طبنات كون كدين ما يعاشوري سقالات كو تاسوعة أنا وانسومي دونا حديث كلنا النبي هذا نوح كير صوموا قبله يوما وبعده يوما يهود خلافه عاشوراء انها صومينه مالك هريسنا صوما مالك دنبيسنا صوم نصوص تاسي امام ابن القيم هي امام ابن حجر العسقلاني كل كيسكو سو خوريا waxay ka soo saareen in soonka caashuuri saddex martabadood uu leeyahay martabada ugu sareysa akmaluha in maalina laga horeysiyo waa isniinta maalina laga dambeeyay waa arbacada oo saddex cisho la soomo waa isniin salaasa arbaca waa sida ugu dhamayskatay martabada labaad in laba cisho la soomo oo isniinta iyo salaasada taasuuca iyo caashuura martabada u hooseysa in caashuurada lagu mitido sanad dhan dunuubteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga dhaafayo لأجل ذلك صالحين تهر عاشورة صوم كذا ويكون متدي جري حتى سفر كل يكون جيران ويسوم جري أو وحي أورن جري رمضان عدة من أيام أخرى بيلاده أو على سواق الله ينكره لكن عاشورة لما سواق الله هو مال حديدا أو فضل جار مال لماذا كره مركا حتى سفر كجرنو ونسومينا أي رهدي